Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal kulanti wanaagsan kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka ood kala socotaan warbaahinta Caalam Media anigoo Cali Rashid Maxamed ayaa idiin waramaya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo lagu sameyn doono baaritaan xilka qaadis sababi kara. Waxaa barnaamijkeena ku daawan doontaan maxaa sababay baaritaanka xilligan lagu sameynayo madaxweynaha dalka Mareykanka. Daawadayaal mar kale kusoo dhawaada qodobkan uga hadlayna madaxweynaha Mareykanka oo lagu sameynayo baaritaan sababi kara in xilka lagu xayuubiyo. kusoo dhawaada markale Caalam Media daawad inoo share garay fiidiyoga haddii aad nagu cusubteen subscribe inoo saar. Aanu ku bilowno afhayeenka baarlamaanka dalka Mareykanka Kevin McCarthy ayaa ku dhawaaqay in aqalka hoose ee baarlamaanka ee Koongareeska loo yaqaano uu bilaabi doono baaritaan lagu sameyn doono madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Afhayeenka ayaa sheegay in tallaabadan uu ku amri doono 3 guddi oo ka tirsan guddiyada uu leeyahay aqalka Koongareeska Mareykanka inay qaataan taasoo ku saabsan in baaritaano dheeriya lagu sameeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden kaasoo ay ku eedeeyeen inuu sameeyay ku-tagrifal dhanka awoodda iyo si la mid ah musuqmaasuq. Kevin McCarthy ayaa sheegay in guddiyadaas uu amri doono inay raadiyaan akoonnada madaxweynuhu uu leeyahay si la mid ah dukumiintiyada uu madaxweynuhu akoonnada u isticmaalo si baaritaan loogu sameeyo xiriirka ka dhexeeya hantida ganacsi ee uu leeyahay wiilkiisa Hunter Biden iyo asagoo la hadlay wariyaasha. Afhayeenka baarlamaanka dalka Mareykanka Kevin McCarthy waxa uu sheegay in baaritaanka marka lagu sameeyo tallaabooyinka madaxweynuhu uu qaaday iyo shakiyada laga qabo tallaabada kale ee xigta ay noqon doonto in xilka qaadis lagu sameeyo taas ay horboodayaan xildhibaanada xisbiga Republikaanka ama Jamhuuriga ee ku jira labada gole gaar ahaan aqalka hoose ee Koongareeska loo yaqaano. Tallaabada xigta in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha ayuu Kevin McCarthy wuxuu ku sheegay in awood buuxda u siin doonto in xildhibaanadu ay aruuriyaan xogaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha iyo si la mid in jawaab loo helo su'aalaha badan ee loo qabo waxyaabaha madaxweynaha lagu eedeynayo. Wuxuuna sheegay inuu rajo weyn ka qabo in madaxweynuhu uu ka jawaabi doono su'aalaha ka yimid habdhaqankiisa iyo si la mid ah xiriirka uu la leeyahay shirkadaha ganacsi ee wiilkiisu maamulo. Eedaha madaxweynaha loo soo jeediyay ayuu afhayeenka baarlamaanku waxa uu ku sheegay inay yihiin eedo macquul ah sidoo kalena lagu kalsoonaan karo kuwaas oo ku saabsan habdhaqanka madaxweynaha ayna ka mid yihiin ku-tagrifal dhanka awoodaha iyo musuqmaasuq ay madaxweynaha ku eedeynayaan. Arrintan uu ku dhawaaqay afhayeenka baarlamaanka Mareykanka ayaa waxay noqonaysaa mid u baahan baaritaan dheeriya in golaha wakiiladu ay ku sameeyaan si xaqiiqooyinka loo helo waxaana baaritaankaasi uu socon karaa muddo bilo ah. Warbixin lagu bilaabayo baaritaanka xilka qaadista noqon kara ee madaxweynaha lagu sameynayo ayaa ahayd tallaabada ugu horreysa ee ahayd dadaallada xilka qaadista ama eedeynta madaxweynaha in lagu bilaabo. Madaxweynihii ka horreeyay madaxweynaha hadda jooga ee Donald Trump ayaa hore loogu soo eedeeyay sidan oo kale inuu ku-tagrifal dhanka awoodda uu sameeyay iyadoo xildhibaanadu ay u soo jeediyeen in baaritaan lagu sameeyo. Waxaana la tilmaamay in afhayeenka baarlamaanka ee xilligan jooga Kevin McCarthy uu sameeyay dib u dhac aad u ballaaran iyo si la mid ah inay iskhilaafeen ficiladiisa xilligii hore ee Donald Trump madaxweynaha ahaa iyo kuwa hadda uu qaadayo asagoo xilligii hore ku adkeysanayay in ay qasab tahay inta aan la bilaabin tallaabada baaritaanka madaxweyne lagu sameynayo in baarlamaanku ay ansixiyaan. Hase ahaatee hadda iyadoon baarlamaanku waxba ansixin ayuu asagu go'aansaday inuu ku dhawaaqo go'aan ah in madaxweynaha lagu sameeyo baaritaan dhanka musuqmaasuqa iyo ku-tagrifalka dhanka awoodaha la xiriira. Xildhibaanada dhaliilsan tallaabada uu qaaday afhayeenka Koongareeska Mareykanka ayaa sheegay inay tani muujinayso inuusan haysan codad ku filan oo baarlamaanka dhexdiisa uu kaga go'aamin karo in lagu sameeyo madaxweynaha baaritaan. Taas ayaana waxay keentay in xildhibaanada xisbiga Jamhuuriga ee Kevin McCarthy uu hogaaminayo ay qaataan go'aan la xiriira in si iskooda ay u bilaabaan ama ugu dhawaaqaan in madaxweynaha lagu sameeyo baaritaan la xiriira musuqmaasuq taasoo keeni karta in hadhow madaxweynaha xilka qaadis ama mansabka xayuubin lagu sameeyo. Xildhibaanada dimuqraadiga iyo si la mid ah wiilka madaxweynuhu uu aabbaha u yahay Hunter Biden iyo qareenadiisa waxa ay sheegayaan in arrintaani ay muujinayso dib u noqosho weyn ama dib u dhac weyn oo uu sameeyay Kevin McCarthy maadaama 2019kii markii baaritaanada dimuqraadiyiintu ay doonayeen in lagu bilaabo madaxweynihii hore xilka qaadisna lagu sameeyo Donald Trump asagu uu ka soo horjeeday inaan baaritaan madaxweynaha lagu sameyn karin iyadoon baarlamaanku aanay cod u qaadin in madaxweynaha baaritaan lagu sameeyo.
afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in aqalka Koongareeska ee ay hogaamiyaan Jamhuurigu aysan heli karin wax qaladaad ah 9 bilood oo iskood ay baaritaan hore ugu soo wadeen aysan jirin wax cadeymo ah oo ay ku soo heleen Kevin McCarthy oo asagu si iskiisa ugu ololeynayo in madaxweynaha la sharaf dilo. Kevin McCarthy hadalka uu suxufiyiinta ka horjeediyay waxa uu sheegay in uu sameyn doono in baarlamaanka la horgeeyo si madaxweynaha baaritaan loogu sameeyo aqalkana loogu qaado codka xilka qaadista ama mansabka looga xayuubinayo. Qareen u hadlay wiilka madaxweynaha Hunter Biden ayaa dhaleeceeyay baaritaanka dacwadda ku saleysan dib u soo celinta arrimaha musuqmaasuqa iyo ku tagrifalka dhanka awoodda ee madaxweynaha iyo wiilkiisa, waxaana ku tilmaamay inay tahay shirqool aan sax ahayn oo ku saabsan Hunter Biden dhaqdhaqaaqyadiisa ganacsi ee sida sharciga ah looga hor yimaado. Madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden oo ah nin da' ah hamina kale inuu mar labaad doorashada madaxtinimada Mareykanka ku guuleysto ayaa waxaa muuqanaya in xilligan Jamhuuriyiintu ay doonayaan inay sumcadiisa waxyeeleeyaan. dhanka kaleeto waxaa ku soconaya madaxweynahaas ka horreeyay Donald Trump dacwad dhanka maxkamadda oo ay xoogga saarayaan dimuqraadiyiintu si Donald Trump laftigiisa looga hor istaago in doorashada soo socota uu ka qayb galo. Daawadelintaas ayaan ku soo afmeeraynaa baaritaanka dacwadeed ee xilka qaadista keeni kara ee Jamhuuriyiintu ay ku bilaabeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. intaan qodobkan la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.